kusoo dhawaada cashir kale oo ku saabsan 8 qaybood oo hadalka ah. Halkan waxaan rabnaa inaan uga hadalno number 6 oo ah prepositions. Haddaba prepositions maxaan ku micnaynaynaa af Soomaali markaa dhahno waa meeleeye, waa erayo lagu sheegayo ama erayo loo isticmaalayo si looga hadlo jihooyinka, goobaha iyo waqtiga uu shayga ama magacaas yaalo ama ku sugan yahay. Waa erayo loogu warbixinayo waqtiga, jihada iyo goobta uu magaca ama shayga ku sugan yahay u yaalo. Prepositions are simply meeleeyana waa la dhahaa, wax uu meeleeyaa, ama English waxaan dhahnaa it shows relationship between things. Laba shay xiriirka ka dhexeeyo ayuu sheegaa. Haddaba afartan qaybood: this is place, erayo oo goobta looga hadlayo ee shayga uu ku sugan yahay. Time waa waqtiga. Direction waa jihada. Positionna waa goobta exactly shaygaas uu ku sugan yahay ama uu yahay xilligaas. Ayaan rabnaa inaan fiirino tusaalooyin aan idin siinaa, mar walba waan sheegaa. Intii kale markaad tusaalahan fahamtid, intii kale aad raadso oo xisaabaadkaada isku darso. Example aan fiirinaynaa. Halkan waxaa ku qoran in waa gudaha, on waa kor, shay ama weel wax korkiisa ah, miiska, kursiga waxaas korkiisa, under waa hoos, near u dhow, beside dhinac fadhiya ama dhinaciisa. oo laba qof markay ag fadhiyaan, qofka dhinaca qofka kale ku hayo beside la dhahaa. Atna waa loo isticmaalaa, waa exactly meeshaas aad markaa joogtid. I'm at home, I'm at work, I'm at school aad leedahay meesha aad markaas ku sugantahay sheegaysaa. Qofkan waxaa beside I'm sitting beside my friend or beside my brother. The pen or the book is near my leg, lugteeda u dhow yahay. Under waxaa leedahay my shoes or my bag is under the bed. Boorsadeeda sariirta hoosteeda ay taalaa. On waxaad dhihi kartaa qalinkan buugu kor saaran yahay. Buugga waa kaasaa, qalinkiina waa kaasaa. So the pen is on the book. In waa isticmaali kartaa oo qalinkan jeebku ku jira ama boorsadu ku jira ayaa isticmaali kartaa. The pen waa shay magac, wuxuu ku jiraa boorsada ama qalinka. Ama aniga waxaan ku jiraa qolka gudihiisa ku jira. Sidaas aad u isticmaalaysaa. Waxaana la yiraahdaa preposition of place. Goobaha ay ka tilmaamaan shayga, goobta uu ku sugan yahay. Intaan oo dhan loo isticmaalaa waa goobta, shayga, qofka, dhammaan magacyadii aan soo baranay uu ku sugan yahay, uu joogo baa loo isticmaalaa ereyadaas. Tanna waxaa preposition of time. Waqtiga at waa isticmaali kartaa 12 at 12 noon ama 12 midnight waa u isticmaali kartaa. On iyadana waa halkan waa ku soo aragtay, intana waa ku aragtaa. Waqtiga waa loo isticmaalaa, siiba maalmaha loo isticmaalaa. Monday, Tuesday, Wednesday. On Wednesday, on Thursday, on Friday as aragno hadba maalinka aad tilmaamaysid ayaa u isticmaali kartaa. Badanaa maalmaha loo isticmaalaa iyo isbuucyada. In waxaa loo isticmaalaa sanadka waxaan dhashay 2025. I was born in 2025 markaa dhihi rabtid, ama 2026 aad dhashay. Sidaas aad u isticmaalaysaa. Saddexdan iyo kuwo kale badan waxaa u isticmaali kartaa waqtiga. Halkan waqtiga saxda markaas tusaale ahaan oo kale exactly waxaan ku raa 8 am imo at aa leedahay. Tanna sidoo kale markaan ku dhahayo waqtigii waa ku timid 8 am imo markaa ku dhaho exactly 8kii ayaa timid. You are on time aan ku leeyahay. In time-na waa lahaa waqtigii markii aad kasoo daqiiqad ama xeer kasoo hormartay waqtigii ama saacadina waa loo isticmaalaa, minidkii, isbuucii, sanadkii, kulli
saddexdan waa loo isticmaalaa. Placena waa loo isticmaalaa. Hadda in waa aragtaa waa goob oo isticmaale, on goob oo nira gudaha iyo korka labadan u kala isticmaalaysaa. Atna meesha exactly xilligaas aad ku sugan tahay oo badanaa goob weyn oo shaqada guriga meelahaas loo isticmaalaa iyo suuqa. Haddaba aragna next one, preposition of waxaa la dhahaa direction. Directionka waa jihada, halkee ka u socotaa iyo xaggee ka socotaa waa Soomaali. Aniga waan socdaa, xaggee u socdaa waa direction. Afarta jiho waa direction waa. Dadka qaar ama ardaydaba direction markaan iraado ama jihada af Soomaali ahaan looma yaqaano. Halkaan camal tusaale markaan ku bixinayo jihada kan compass-kaas la isticmaalaa. Ardayda kale iskuulka dhiganaysa waa la baraa. Halkaan waxay noqonaysaa waa waqooyi. Halkaan waxay noqonaysaa intan waa south. Intaas waa north south, waqooyi koonfur. Soo halkaan marka badanaa marka inta tahay waa east, gacantaada midig, intana waa west, gacantaada bidix waaye. Ma fahamtay? Soo marka jihada saana loo isticmaala. Adiga misaana u socotaa oo falaarta halkaan markay aadaysa u socotaa, mise halkaan u socotaa exactly markii toosan tahay, mise laba dhexdaana ku socotaa, mise halkaan dhexda ku socotaa. Jihada halba adiga aad ku socotid ayaa la yiraahdaa. Kulligoodna waa 360 degrees. Jihooyinka sidaan ayaa af Soomaali ani si fiican ma aqaano, laakiin intaan waa inta Englishka jihada directionka ama meel baa ka soo baxay, meel baa u socotaa. Gurigeeyan ka soo baxay, suuqa u socdaa. Haddaba marka to baa u isticmaalaysaa waa marka meesha u socotid oo ku wajahan tahay. Fromna waa marka goobti ka timid aad ka soo bixaysid ama gurigaada ku soo laabanaysid ama meel kale oo cayiman aad ku soo socotid. Waa meelshii aad ku sugnayd aad ka soo baxday, from waaye. Marka u socotidna to waaye. Into waa shay gudaha ku socdo waa. In waa soo barnay, to markay raacdo waa gudihii buu ku socdaa. Qalinka hadda wuxuu ku socdaa gudaha meel oo xiran ama meel god ah buu ku dhex socdaa oo gelayaa. Soo marka taas waa midi directionka. Tusaale ahaan waxaa jirta preposition of reasons la because of marka isticmaalna sababtaas darteed ayaa waxaas u sameeyay ama due to. Qaybtan waxaa waaye waxa hawshaas u sameyn weyda ama ficilkaas u dhici waaye, ficil kale ayaa sabab u noqdo oo dhacay isla waqtigii. Sidaas darteeda waad awoodi weyday ficilkii ku qorshaysnaa inaad sameysid. So because of reason aad bixinaysaa. Waxaan hawshaas oo qorshaysto u qaban waaye because of waxaa dhacay waxaasaa dhaceen. Waxbaa kaa celiyay hawshii ku qorshaysnayd inaad qabatid ama meesha u socotay inaad ka joogtid sababtoo ah waxbaa dhacay. Wixii dhacay dartood ayaa hadda noo micneynaysaa. Because of aad isticmaalaysaa si aad noo siisid sababta waxaas u qaban weyday ama waxaas u sameysmi waayeen. So intaan markaa fahamtid oo preposition ku saabsan, haddaba aragna jumlada si loo isticmaalayo. Number 1, the pen is in my pocket. The pen qalinka is in wuxuu ku jiraa ama uu yahay uu ku sugan yahay my pocket jeebkayga. Pocket waa jeebka. I hope inaa spelling saxay. So the pen is in my pocket. Qalinka wuxuu ku sugan yahay, qalinkan jeebkayga ayuu ku dhex jiraa. Waa meel xiran oo gudaha ah. Alright. Second oo isla intaas isticmaalayno positionka ama placeka. The phone, telefonka is on. Wuxuu ku sugan yahay dusha the table, miiska. Miiska dushiisa ayuu saaran yahay, waa korkiisa. Miiski waa kana telefonkiina korkuu ka saaran yahay. Telefonkiya kore, miiska hoose. So marka the phone is on the table. Telefonkayga aawa ay tiraahday waa kuu sheegay waxaan leeyahay miiska dushiisa ka fiirso telefonkaada. The phone is on the phone. Telefonka wuxuu ku sugan yahay ama saaran yahay miiska dushiisa. Okay. I sleep waxaan seexdaa at 10 p.m. every night. I sleep
caadiyan ama si joogta regularly waxaan seexdaa at 10 pm 4 saac oo habeenimo every night. habeen walba markii ay 4 saac ku dhacdo dhidhi tiraado aniga hurdaan ku jira ama waaba diyaar garoobay waa seexanaya. so marka ay sleep marka leedahay ficilkan waa ficil si joogta loo sameeyo oo regular ah weeye, waana simple present tense waa jumlada. waa next waxa waaye we will meet, waan kulmi doonaa on next Monday, isniinta soo socoto ayaa kulmi doonaa. halkaa marka maxaa isticmaalayaa waqtiga ayaa on u isticmaalayaa, waqtigaasna waa goorme, waa maalin. so maalintan Mondaydan oo isniinta ah waa isniinta xigta ayaan ani adiga aan kulmi doonaa. we will meet, will ayaa waxay ka dhigaysaa in future-ka uu ficilkan dhici doono. ficilkan meet waaye, goormuu dhici doonaa, waa mustaqbalka hadda kadib waaye. so marka daas waa u isticmaaleen haleena we will meet, waan kulmi doonaa on next Monday, isniinta soo socota kulmi doonaa. okay tanna maxaa weeye he is going to school, waa jiha waaye, wuxuu ku wajahan yahay uu u jeedaa u socdaa iskuulku ayuu ku wajahan yahay, uu rabaa inuu gaaro tago. marka directionka u socdo maxaa waaye waa iskuulka, gurigu ka baxay iskuulku aadaya. so marka directionkiisa waa iskuulka. so maxaa noo muujinaya to'daasa sheegayso he is going to school. she came from Europe, iyada came waxay timi waa jumlad. this sentence waxay sameynaysaa waa past sentence waaye. she came waxay timid ama ka timid, ama she came from waxay ka timid Europe, waxay ka timid from tan waxay noo sheegaysaa hadda meeshay ku suganta mahana meel kale oo la yiraahdo Europe bay ka timid. so hadda waa marti midha ama deegaankeeda halkaa maha ama meeshaasay tagtay. she came from Europe, waxay ka timid Europe bay ka timid. alright, this sentence marka waxay leedahay iyadana he stayed home because of rain. halkaa marka waxaa waaye sabab buu u joogay guriga, sababtaasna waxaa waaye roob baa da'ay. okay so marka waxaa leena he asaga stayed wuxuu joogay, waa jumlad ama ficil dhacay mar hore waqti hore, past tense waaye, past tense. he stayed wuxuu joogay home, gurigu iska joogay asagoo laga rabay inuu iskuul aado ama shaqo tago ayuu guriga iska joogay. waayo u joogay because of rain, sababtoo ah rainkaas oo ah roobka ayaa da'ay. because of the rain, roob baa da'ay ama roob baa da'ay, sababtaas darteed wuu bixi waaye, wuu joogay. maxaa noo sharxay marka joogistan oo asaga joogo guriga maxaa lagu sababeynayaa ama reasonka oo u jooga maxay tahay, waa because of rain, roob baa da'ay sidaasuuna u joogo guriga oo u bixi waaye. okay next waxaa waaye the flight, waxaa waaye duulimaadkii was delayed, wuu daahay. maxaa sababta u daahay maxay tahay, due to fog, ciiryaamo darteed ayuu u daahay oo waqtigii loogu talagalay in uu dhammaado soo gabagaboobo wuu ka daahay, sababtoo ah cirkii baa ciiryaamo ku jirtay, sidaas ayuuna fligtkii ama duulimaadkii ku daahay, uusan xilligii loogu talagalay u dhicin. so marka prepositionka intaan iyo kuwo kaloo fara badan waaye, intaan waa example, kuwa kale adiga baro raaso bila tawfiiq.